موضوع ما تحويان مقاصد الإسلام من الزواج مهمة جورك أولى إسلامك مهمة جورك أولى إسلامك maxay tahay marka guurku waa waxyaabo asaasiga ah oo shariicada islaamka ay ka istaagtay mowqif adag saartay waana shay qofka muslimka u baahan yahay oo laga maarmaan ah inuu guursado muhiimada kooda waxa weeye an-naslu qofka inuu farcamo oo wax dhalo oo tar farci bani aadamku uu san go'in hadii guurku iska dhaafo qofka oo canuus noqdo oo qof ama dhalayso iska guursanin uu noqdo iska fariisto marka tarankii bani aadamku waa yaraanaya qofkii marka waxa laga muhiimadiisa kooda waxa weeye an-naslu qofka inuu wax dhalo هذا دولة فرق بدن أو رجبات كوه ريان ما كيف فرع جوجيين أو دلمود اللي يري تحديد النسل وح لا يقانو أما فاميلي بلانينج وح لا يقانو محاك هذا شيء قريه قروح بدن دول دسان وطن دسان لكن تد أن لهن ويالكي وح بدل عمله محيط وح وأديك عمله قف كوا دقوبة يا نلا أدو كده من أدوك وكتجايا يو دلي أسأل لفتكيس حقوق دي سوالة نموا واي إن دولة قدر يشوف أو ما كقريه ذاتك دقوقة ولا متقاعدين تأ لغو هاي كدلته marka muhiimada guurku waxa way an naslu qofka inuu wax dhalo oo farcamo taasna waa in la ogaado rag iyo dumarba gaar ahaan gabdhaha inaadan dhihin ilmaha waa iska xiraaya ama waa hay'to iska joojinaya maxay hay'to ama maxay hay'to eedo ruqso u haysanin ama duruuf caafimaad aysan jirin ama ninka odaga kala heshiin in ilmihi iska xirto marka muhiimada guurka koo waxa way qofka inuu farcamo oo uu wax dhalo oo maxay hay'to uu diyaariyo bari qofkii bedeli lahaa booskiisa gali lahaa markuu adduunka ka tago marka ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu marka nabi waxa ilaahay quraan ku sheegay nabiyaan ilaahay subhanahu wa ta'ala markay duqoobay ilma siiyay wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum min ad-dayyibati afa bil badil yu'minuna wa bi ni'mati llahi hum yakfurun ilaahay wuxuu naftiin ka sameeyay xaasas iyo maxay ahayd dhalaya wiilal iyo caruur dhalaya iyo caruurta dhalana xafada kuwa ayay u tahay marka maxay ahayd marka hadana risqoodan ilaahay waa ku soo dhiibaya warazaqakum alla dawadiga min ad-dayyibati waxa wanaagsan oo marka ilmuhu risqooday wataan marka been waa marka waxa la ilmaha faqriga keenayaan ama gaajo keenayaan ama maxay ahayd dib u dhac ay ku guridayaan wax ka jira mal cunuga dhashay Allah subhanahu wa ta'ala risqiisa waalidkiisa u soo dhiibaya aabihii dhalo masuulka ka ahaba ilaahay u kafaala qaaday asaga maxay ahayd laga raba inuu kariyo ilaa uu maxay ahayd ka shaqeysto wiil duu yahay ilaa laga guursado gabar haday tahay inta asaga saaran tahay Allah uu saqiraya risqiisa oo waalidkiisa baa loogu saqiraya oo loo soo dhiibaya ilaahay wuxuu dhahay la taqtulu awlaadakum nahnu narzuqukum wa iyyahum أنا رزاقنا إياه أيجاب عيادك نحن نرزقهم وإياكم مركا والدكين وحلو إرزاقيا إلمها سببتون إلمهنا وحلو إرزاقيا والدين توت سببتون مركا عرورت بركة هذا إيه خير كوده وطن نبي الله زكريا أو دقوة أو الملعان كده محيط الملعان جوجا أو مركا النبي نمدي قفك دحل هاي سنين أو إلهي برياي مركا حجري ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين إلهه هيجتين كليجي أديك واحد حلو أو مركا وحور وقف ودينتي رسالة كورجيا markaas ilaahay subhanahu wa ta'ala marka fahabli min ladunka waliyan wada ilaahu isi qof wali ah ani dhaxlo yarithuni ani dhaxlo wa yarithu min ali yaqub yaqub oo bin nabinimada dhaxlo ilaahu isi waj'alhu rabbi radiya bidhalika marka ilaahay wuxuu si yahya ilaahay ku irsaaqay oo ilaahay si kaasa marka nabi noqday oo nabinimada ka dhaxlay marka nabigaas wuxuu ka cabanaya ilma la'aan ka caban markaas ilaahay u ajiibay subhanahu wa ta'ala marka rabbi habli min as-salihin wa bashar marka nabi ibrahim isagana duqoobay marka isagana wuxuu ilaahu wax saalix ay si marka saasal la inaa ku duceysato marka ilma la'aan ku qabsato ama ilmaha ka istaagaan ama ilma aad wali wax dhalay sidaas ambiyada ilaahay u bari jireen inaa u bareed inta dhakhtar iyo wax kala aadin koob arintaada ilaahay u dhiibto oo ducada badsato ilaahay wuxuu yiri fabasharnaahu bi ghulamin halim waxaan siinay wiil oo maxay ahayd xaliim oo dulqaad badan marka kadib wuxuu leeyahay alxamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari ismaaciil oo isxaaq asoo duqoobay ba ilaahay ilma siiyay oo gadaal buu ilmo ilaahay ka siiyay labadoodina nabi noqdeen marka labadaas nabi yaa tusaale kugu filan Allah subhanahu iyaga nabi la'aan ilma la'aan oo duqoobay inay ilaahay ka bariyaan subhanahu wa ta'ala in awlaad uu ku irsaaqo ilaahayna uu ka aqbalay oo mid walba awlaad uu dhalay awlaadina in nabinimada ka dhaxleen والذين يقولون وكا إلهي مكو أمان عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إله إلمهنا يحاسس كأننا نغدي كو القبوسي أماك إلمه هو القبوسي والراحة النفسية مركا عنو قاد كور تاغي هاي مركو كلا فديو مركا دفتو كو هيسو مركو محي هيتا وح قبصدا أو شقيسنا انتا قفك والدك إدمئنان ودريمايا مركا القبوسي بي إلمها كو نقنايا القبوسي يا إلمها كو نقنايا marka ilaahay wuxuu marka in wadkuru id kuntum qalilan fakatharakum badnaanshaha bani aadanka muxuu ka imaanaa inuu qofkii wax dhalo nabi alayhi wasallam tazawwaju fa inni mukathirun
bikum al-amya guursada waxaan idinkugu faani doonaa ummadaha kaleento markaa guursato ilmaha dhashan ilmaha xuquuqdooda waa inaad garastaa oo aadan noqonin غير مسؤول aadan noqonin marka ilaahay hadana aayad kale yaa ayuha nas taquu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إلهي markuu nabi aadam abuuray hadana xaaskiisa loo abuuray waxa ka sii farcamay caruur fara badan oo rag iyo dumar bale marka idan muhiimada guurka waxa waaye in qofka maxay ahato uu wax dhalo muhiimada labaad guurku leeyahay waxa waaye maqaasida qadul basar indhaha inuu laabo qofka indhihiisa way laamayaan xaraan ma raadinayo oo xaraan uma milicsanayo oo qofku markuu ninkiina guri xaas leeyahay xaaskiisa waa marjic oo ku laabanaya gabadhina ninkeeda ku asturnaanaysa marka waxa ka maxay guurka maqaasidiisa waxa kamid ah qadul basar inuu yahay guurka inuu indhaha laabo sidoo kale maqaasidiisa waxa waaye xaas wanaagsan adduunya mataac wa khayru mataaciha almar'atu salihah adduunyadu waa raaxo oo kooban maxaa saraaxadeeda ugu wanaagsan hooyo wanaagsan oo guriga ku fadhido oo ilmaha ku tarbiyayso oo caruurta ku qabato oo ninkeedana laf dhabar u noqoto oo maxay ahayd ka shaqeysa guushiisa iyo maxay ahayd horumarkiisa ka shaqeyso badan marka waxay kamid maqaasida haween wanaagsan inuu qofku ku dadaalo inuu soo ku heli lahaa maxay ahayd baraaraha nolosha ay tahay xaaska wanaagsan ay kaalin ka tahay nabiga wuxuu dhahay arbacu min as-saada afar waxay farxad ayaa ku jirto almar'a saaliha hooyo wanaagsan xaas wanaagsan maskan waasic guri waasic oo ka badan oo adii caruurtaada idin deeqo iyo maxay ahayd daris wanaagsan iyo gaadiid wanaagsan intaaba waxa waaye qofka markuu inta isku haysto xaas wanaagsan iyo hooy wanaagsan iyo daris wanaagsan iyo gaadiid wanaagsan marka qofkaas sacaado uma dhigno marka maxay ahayd qofka marka maqaasida guurka uu leeyahay marka waxa waaye maxay ahayd inaan qofka uu noqdo qof indhihiisa oo ilaaban yihiin maqaasida kale guurka uu leeyahay waxa weeyaan al-shucuur bil mas'uuliyya qofka inuu mas'uulnimo u diyaar garoobo ilaa marka guurkii hooyadii xaasnimo ay noqonaysaa ninkeeda mas'uul maxay ahayd caruurteeda mas'uulka ka noqonaysaa aabihina mas'uul noqonaya gurigiisa caruurtiisa mas'uul ka noqonaya nabiga wuxuu dhahay kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun can ra'iyati qof kasta waa raaci adeega la dirsaday oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu aqro weydiin doono wixii loo diray marka fal mar'atu raa'in fi bayti zawjiha wal rajulu raa'in fi bayti zawjati marka ninkiina wuxuu mas'uul ka yahay oo raaci ka yahay oo ilaahay aqro ku xisaabtamayo subhanahu wa ta'ala caruurtiisa iyo xaaskiisa gabadhina waxay mas'uul ka tahay ninkeeda iyo gurigeeda mas'uul ka tahay marka qofkii wuxuu dareemayaa shucuur bil mas'uuliyya maxay ahayd maqaasidiisa sidoo kale muhiimada guurka uu leeyahay idmi inaan qofka deganaansho xasilooni uu leeyahay xasilooni iyo maxay ahayd raaxa nafsiya iyo qofka guurka ka helaya iyo deganaansho qabow oo qofka uu ku milicsanaynin inuu noqdo qof dhacdhac badan ama meel ku haadhaad badan oo guurka qofka uu ku xasilaya litaskunu ilayha maqaasida kale guurka leeyahay waxa weeyaan inuu xiray albaabka xaraamta kullu manafid al-haram oo qofkii xaraamta uu ka xirmanayo uu ka asturmanaya aduu raadina waa marka oo dambiyada waaweyn noqonaysa in noqdo qofka inuu guurka ka xiro waxyaabaha xaraanta ah in lagu dhaco oo maxay gabadhina xaraan irhaayso oo ninkina xaraan u raadiyo marka si shariicada waafaqsan isku guursadaan qof walba qofka kale xaqiisa uu ka helo idan wuxuu noqonayaa maxay ahayd albaabkii waxa ka xirmanaya zinada ida tazawaja rajulu faqad istakmala nisfa diinihi falyattaqillaha fi nisfi al-aakhir marka wuxuu qofka haduu diinta u guursado waxaa dhamaystirma diintiisa nuska kale inta ilaahay kaga baqo nuska kale ilaahay ha kaga baqo marka inta marka muhiimada guurku u leeyahay nolosha bani aadanka waxay tahay shay wanaagsan oo shariicadana ku boorinayso qofka inuu wax dhalo inuu indhihiisa ku laamadaan inuu noqdo qof maxay ahayd mas'uuliyad leh inuu noqdo qof degan inuu noqdo qof maxay ahayd dhamaystiranta diintiisa nuskeed dhamaystirantay intaasoo dhan waxaa muhiimada guurka u sameeyay islaamku u sameeyay oo marka guurka wuxuu xirayaa albaabka xaaraanta xirayaa wuxuu kaloo xirayaa canuusnimada qofka inuu guur la-aan iska joogo oo uu ku duqoobo oo marka uusan weligiisba uusan guursanin islaamku kuma dhiirigelinayo marka qofka inuu caanis noqdo qof maxay aan guursanin marka maxay ahayd marka muhiimadaas islaamku u leeyahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatuh.